Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Anigoo ah Cabdisalaan Faarax Jaamac ama Cabdisalaan Didiyo, runtii waxaan iyadana hadda xulan doonaa shaxdii aan ka soo garab ciyaaray intii aan kubadda cagta ciyaarayay oo runtii waqti dheer aan kubadda cagta ku soo jiray. runtii aan oran karo dad tara badan ama oo fieldiga igula jiray ay adag tahay inaan kala doorto, laakiin waxaan isku dayayaa insha Allah tacaala inta aan isleeyahay mid waliba ugu habboonaa inaan ka doorto. maanta waxaan ka bilaabayaa booska goalkeeper-ka. runtii intaan kubadda cagta ku jiray goalkeeper-ka aan islahaa ugu fiicnaa aan indhahaygu qabtaan ama iga garab ciyaaray waxaa la oran jiray Khalid oo national teamka aan wada baxnay 2008. runaantii noona suura geliyay wali waxyaabaha aan ku dooranaya waxay tahay anoo waqti badan aan arag national teamka oo badinaya aan indhahayga ku arkay anoo goob jooga u ahaa inaan ka badinay national teamka Tanzania oo runtii uu guushaas isagu lahaa 80%. difaaca waxaan u dooran doonaa lambar 2 ah Bishaar Maxamed Carte oo runtii waqti fiican aan ku soo wada qaadanay ciyaartoydii xulka gobolka Sool. difaaca lambar 4 waxaan u dooran doonaa Jaamac Muuse ama Jaamac Ilkaasi ama Jaamac Dheeris hadda u taqaanaan oo runtii kamid ah jiilashii ugu dambeeyay aan kubadda cagta ku soo gaadhay, laakiin runaantii markaan daawado ama arkay ama uu iga garab ciyaaraya yahay qof aad ku raaxaysanayso inuu ku joogo position kaas oo isagu haddeer wali ku dhex jira kubadda waana runtii u hambalyaynayo ah qof aad iyo aad ugu miisaan culus. lambarka 5 ee kooxda waxaan ka dhigayaa Cabdullaahi Yare oo runtii ah kabtankii xulka Puntland ee sanadkii aan dhaawac ahaa xulka matalayay hogaaminayay kuna guuleystay laacibkii koobka uu ka qayb galay. lambarka 3 waxaan ka dhigayaa Cabdullaahi Gacmo oo runtii isagana ah nin aad iyo aad u xirfad sareeyo oo inta aan isleeyahay waad soo daawatay ama uu ka soo garab ciyaaray aad loogu raaxaysto kubadiisa. dhexda haddaan u imaado waxaan dooranayaa Cabdixakiin Cali Geelle Jaayo oo isagu runtii kamid ahaa ciyaartoy waqti fiican uga soo qaatay ciyaaray gobolka Sool oo runtii waqti aan fiican soo wada qaadanay. waxaan ku lamaanin doonaa Cabdikariin Guji nin la yiraahdo oo aan marar kala duwan iska hornimay marar badan iska garab ciyaarnay oo runtii isagu ku sugan magaalada Hargeysa. waxaan booska 3 gelinayaa Maxamed Ciise Caabe oo isna kamid ahaa ciyaartoy tiro yar oo waqti fiican uga soo qaatay gobolka Sool xilliyo kala duwan. waxaan siinayaa garabka bidix ama garabka lambar 7 ah aan ilaahdo waxaan siinayaa Axmed Dhabahaye oo isaguna runtii kamid ahaa ciyaartoy waqti fiican aan ku soo wada qaadanay xulka gobolka Sool oo ay muddo ugu dambeysay. waxaan dhinaca midig siinayaa Faarax Kolokolo oo isaguna kamid ahaa ciyaartoydii xulka Puntland waqtiyo kala duwan aan ku qaadanay xulka gobolka Sool. lambarka 9 oo u dambeeya waxaan ka ciyaarsiin doonaa Yacquub Cismaan oo runtii ahaa dhaliyihii xulka Puntland iyo gobolka Nugaal oo runtii aan soran karo wuxuu ahaa qofka ugu fiicnaa ee position-kaas ka ciyaara intii aan kubadda cagta ciyaarayay aan arko ama ugu fahanka fududaa. runtii waxaan ku siiyay qof fahan badan oo aan u baahnayn xataa marka aad kubadda cagta ku hayso inaad ka fikirto meesha aad kubadda ka siin lahayd oo aad arkayso isaguna dhulkii samaynayo uu kubadda ka qaadan lahaa. runtii aan ku soo gabagabeynayo aan oran karo wuxuu ahaa intii aan kubadda cagta Soomaaliya ku jiray ilaa national team aan baxay qofkii aan oran karo qofkii ugu fahanka fiicnaa ee position-kaas ka ciyaara aan arkay ahaa.